بسم الله ولي waxaan nagala socotaa waalid waa channelkii adiga lagu sameeyay een ugu magac darnay waalid legacy raadka ama dhaxalka waalidka bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayidina maxamed wa ba'd maanta waxaanu ka hadlaynaa xal kamid ah xulusha da'yarteena lagu badbaadin karo waxaan ka soo hadalay dhibaatooyin fara badan oo jiilkan maanta koraya haysta waalid waxaad isweydiin kartaa xalku muxuu yahay maanta marka mid kamid ah halkan ka hadlaynaa waana kuwa u muhiimsan waa doorka aabuhu uu ku leeyahay koriinka ilmaha aabaha doorka iyo ahmiyadda uu ilmaha u leeyahay marka ay korayaan waalida waxaan rabaa inaan ku dhaho ma ogtahay aabuhu inuu ka muhiimsan yahay hooyada marka ay noqoto jihaynta ubadka waan ku celin aabuhu wuu ka muhiimsan yahay hooyada marka ay noqoto jihaynta ubadka tarbiyaynta ubadka wiilku ciddu ku dayan lahaa gabadha ciddi kalsooni ku beeri lahayd hooyadu ma ka ajar badan tahay haa ma ka fadli badan tahay haa quraanka iyo diinteena iyo axaadiista ma ku aragnay in hooyada gooni loo soocay oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam noo sheegay 3 jeer in aabaha ka fadli badan tahay haa ma ka jeceshahay ilmaha aabaha haa laakiin marka ay noqoto ilmaha korinkiisa caqabadaha adduunka maanta jira sida uga bayrayo cidda jihaynaysa cidda tilmaamaysa cidda hoga tusaaleynaysa cidda uu ku dayanayo wiilka raganimada meeshuu ka keenayo gabadha kalsoonida meeshay ka keenayso shakhsiyad ay meel isku taagaan meeshay ka keeni lahaayeen marka la eego quraanka waxa ku cad aabuhu inuu ka muhiimsan yahay hooyada markaan quraanka akhrino waxaan arkaynaa aabba la soo qaadayaa waa markay noqoto jihaynta ubadka waa markay noqoto in wax loo sheego luqmaan aabbo ahaa nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam markii ilmihiisa la hadlay aabbo ahaa nabi yacquub aabbo ahaa hooyada iyadoo si walba aabaha uga fadli badan haddana markay noqoto koriinka iyo jihaynta cidda lagu dayanayo waa aabaha sidaa darteed qur-aanku culays weyn buu saaray u fiirso luqmaan waa aabe wiilkiisu la talinayaa wuxuu leeyahay aabe laa tushrik billaah ina shirka la dulman cadiim aabe mara cibaadada ilaahay cidnaha la wadaajin shirki ha gelin ilaah bay u khaas tahay aabe aqimi salaa salaada ilaali aabe wa'mur bilmacruufi wanha cani lmunkar xusuuso doorka aad bulshada ku leedahay oo ah wanaagga inaad ugu yeerto xumaanta ka reebto aabe innaha intaku midqaala xabatin wuxuu leeyahay haddaanan kula joogin shaqaan aadi karaa waan dhiman karaa keligaabaa tahay wax walba ood samayso haddaad qarsan ogow ilaahay subxaana watacaala aakhiro wuu soo saaray adigaa ilaahay subxaana watacaala hor istaagay accountability buu barayaa wuxuu barayaa ilmuhu inuu isla xisaabtamo mas-uuliyaduu barayaa waa aabe weeye cidda sidaa u baraysa waajibka alla subxaana watacaala ku leeyahay salaad hadday noqoto waajibka bulshadiisa ka saaran bal hadday noqoto qaabku u socon lahaa hadday noqoto qaabku u hadli lahaa uu odhanayo ha u dhawaaqin sida dameerka waa aabe aabuhu muhiim buu u yahay nebi ibraahim soo qaadiy nebi yacquub caruurtooda waxay xusuusinayaan astaantooda oo waxay leeyihiin ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun u fiirso waa waalid laakiin waa aabbayaal waa cidda mar walba jihaynaysa carruurta waa cidda mar walba toosinaysa carruurta sidaa darteed waxaan arkaynaa doorka aabuhu waa midka ilmaha ay u baahi badan yihiin maanta qurbaha markii la joogo caqabadahan si ay uga gudbi lahaayeen diintooda si ay u xajisan lahaayeen siday dad wax ula qabsan lahaayeen waa aabbaha weeye nebi yuusuf isagoo ilmo yara ayuu riyo arkay subax markuu soo toosay aabihii buu u tegey markaasuu ku yidhi aabe xalay waxaan ku riyooday إني أرى في المنام حلي أبي وحنكرت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حلي أبي وحنكرت وضح الدجاهن يضيحن يوحى صورنا إي سجودية وفير سنبي يعقوب وأب رياضة المهيسة أيو 10 كسر دحسارية مركز وحبريا دبع بشرك وحبريا هناسه إنه يهي شيطانك وحو استعماله أو لها اسكو ديري كرا مركز لي ويل كيغو لا تقصص رؤياك على إخوتك هو أشياء الرياضة نوعنا ولا لذا محايلي way ku dhagri karaan way ku khiyaameyn karaan shaydaan baa isu keendiri ficilna way ku sameeyeen u fiirso nabi yacquub geeridu markay u timid xitaa caruurtiisu isugu yeedhay
inuu hubsado meeshii uu ku jiheeyey iyo waddadii uga tegay iyo tarbiyaddii uu siiyey inay ku taagnaan doonaan. oo waa ka ilaahay odhanaya am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi. aabe gerida ay timid, waan dhimanayaa, ilaahay xaggiisaan aadaya, kaalaya. hareerahay ka fadhiyaan, waa aabe naftaa ka baxaysa. hal su-aal weydiiyey, maxaad caabudi doontaan markaad dhinto? meeshaan idigu jiheeyey ma ku toosnaan doontaan? waa aabe. daraasad waxaa jirta waalid la yidhaahdo the crisis of fatherlessness in America, aafada aabba la-aanta ah ee ka jirta wadamadan aan joogna qurbaha, khaasatan North America. subxaan allah, daraasadda waxaa sameeyey dadaan muslimiin ahayn. u fiirsa marka, waxay yidhaahdeen daraasadaasi waxay leedahay 90% dadka homelesska noqda, caruurta homelesska noqota ama run away kids waxaa la yidhaha, caruurta guryaha ka cararta ee jidadka iyo darbijiifka iyo gangs ka noqota, dhammaantood waxay ahaayeen caruur aabahood uusan qayb ka ahayn koriinkooda. u fiirso aabbaha marka ahmiyaduu leeyahay. daraasadaasi waxay leedahay 63% waxaa la yidhaha teen suicide, waa da'yarta isdilaysa, ama xabad ha isku disho iyo gang, ama ha isku dilaan dawooyin iyo waxaa la yidhahdo ma aragtay overdose, kiniinyadan fentanyl, purple drug iyo codeine, waxyaabahan dhalinyaradu isticmaalaan ee hadda runtii baabi'iya, ha noqdan say doona ha isku dilaan iyagoo yar yar oo tiin ah, 14, 15, 16 meelahaasa. waa caruur aabahood uusan qayb ka ahayn noloshooda. daraasaddu waxay leedahay 70% teen pregnancy waxaa la yidhaahdo, waa gabdhaha iyagoon guur gaarin oo gabdha yaryara 17, 18, 16 meelahaasa uurka uu kusoo baxo. allaha gabdheena xifdiyo. maxaa sababay? waxaa sababay aabuhu qayb kama ahayn nolosheeda. waa daraasad la yidhaha the crisis of fatherlessness in America. waxay leedahay 85% da'yarta ama caruurta markay weynaadaan la soo baxay waxaa la yidhaahdo behavioral disorder, oo ah dabeecadahan qalafsan, ama iskuulka marka la joogo kuwa wax bulli garaya ha noqdaan, ama kuwa maaragtay dukaamada dhaca bistooladaha wata ha noqdaan, ama kuwa nolosha ka dhaca. iyaguna waxay ahaayeen caruur aabahood uusan qayb ka ahayn koriinkooda iyo noloshooda. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mida waalidow ee daraasadani ay sheegayso, waxay yidhaahdeen hooyo iyo aabe wada jooga oo ilmihii wada korinaya oo waqti gelinaya, iyo aabe keligii oo waqti gelinayo ayaa isku mid ah. aan ku celiyo, hooyo iyo aabe wada jooga oo dadaalayo, isgarabsanaya oo wada korinaya, iyo waxaa isku mid ay daraasadu leedahay aabe keligii dadaalaya, noloshooda qayb ka ah. doorkaasoo aabaha uga jiraa. waxaa laga yaabaa dadku inay si kale u fahmaan, hooyadu way ka fadli badan tahay, waan ku celinaynaa, way ka naxariis badan tahay, way ka jacayl badan tahay. ilmuhu hooyadii aabaha ka jecel yihiin, waynu ognahay. laakiin markay noqoto caqabadahan, duruufahan, waxaanaan arkayna maanta, hadday noqoto diinka baxa, hadday noqoto qowmuluudnimada, hadday noqoto identity crisiska, ilmahan shakhsiyadooda lumayso, hadday noqoto wiilku markuu rabo inuu guursado, cidda la raba inay soo garab istaagto, gabadhu markay rabto inay guursato, nin wuxuu yahay yaa baray, ninka u horeeyay baratay waa aabaheed. isagaa jacayl bare, isagaa kalsooni bare, isagaa shakhsiyadeeda bare, isagay ku dayanaysaa. gabdhaha inta badan aabuhu jacaylka ku koriyo, jacayl nin kale kama raadiyaan, waayo jacaylka aabahood uu ku koriyey ayaa wax walba uga muhiimsan. qodobkan maanta aan sheegayna marka wuxuu xal u yahay badbaadada awlaada waalidow. alla subxaana wa tacaala marka laga yimaado xalalka faraha badan ama solutionka aan ka hadli doono, mid ka mida weeye aabuhu inuu qayb ka noqdo nolosha ilmahooda. wallaahi aabbo 4 saacood ka sheekayso maqaxi waxaa kaaga khayr badan 1 saac ood wiilkaaga ama gabadhaada video game guriga kula ciyaarto, la lugayso, moolka la aado, la sheekaysato, noloshooda aad qayb ka noqoto, saaxiib aad la noqoto. allaha awlaadeena badbaadiyo. fadlan muuqaaladan saad u hesho waalid legacy channelkan yirahdaa lagu sameeyey subscribe hadda saad kuwa kale u hesho, walaalaha muslimiinta kalena la share garee. waa mar kale iyo bahda waalid legacy channel oo ida leh awlaadeena allah xifdiyo, annagana allah ina xifdiyo. hada wallahu aclam. salli allahumma ala sayidina muhammad وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.